magacayga waa xildhibaan cabdiqaadir asable cali oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeed. waxaa maanta sharaf ii ah farxad weyn ii ah inaan halkan ku soo bandhigo murashaxnimadeeda u taaganahay doorashada xilka madaxweynenimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee 2016. waxaan rabaa meeshan inaan ku ballan qaado shacabka Soomaaliyeed u ballan qaado xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya u ballan qaado in haddii la ii doorto 4 sano ee soo socota Soomaaliya in ahmiyadda ugu horeysa aan siin doono amniga iyo ciidamada amniga ka shaqeeya ugu horeeya ciidamada qalabka sida kuwaasi oo aan dhoori doono ama ilaalin doono xuquuqdooda haddii ay tahay macaashkoodii iyo haddii ay tahay caafimaadkoodii. waxaan rabaa inaan ballan qaado in waxaan u diyaariyo amniga iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliya in muddo kooban ay kula wareegaan amniga Soomaaliyeed oo dadka walaalaha ay u yimid inay Soomaaliya ka kaalmeeyaan ay ka cafiyaan oo shaqadaas ayaga ay la wareegaan haddii Ilaahay rabo. sidoo kale waxaan rabaa inaan ballan qaado in Soomaaliya xiriirka ay la leedahay caalamka iyo iskaashiga ay la leedahay dowladaha caalamka oo dhan inaan kor u qaado taasoo ku dhisnaan doonta maaragtay ixtiraam la isdhaafsado iyo daris wanaag Soomaaliya ay noqoto wadan gudihiisana nabad ka ah dariskiisana nabad la ah. sidoo kale waxaan rabaa inaan ballan qaado in dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta ku dhibaataysan wadan gudihiisa iyo dibadiisa loo abuuro shaqooyin taasoo ay ku imaan karto in sare loo qaado tacliinta wadanka isla markaasi loo suubiyo shacabka ardada Soomaaliyeed ee wax baranaysa aqoon ay ku kororsadaan mid gudaha ah iyo mid dibadda ah oo dowladaha saaxiibada ah ama walaalaheena deeqaha inoo fiican kor loo qaado taasoo keenaysa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan aqoon ku filan wadankooda ay ku maalgashtaan oo ay kaga shaqeeyaan waxyaabihii ay soo barteen. cadaaladdu waxa ay ka mid tahay haykalada ugu muhiimsan ee dowladaha casriga ay ka aasaasan yihiin. haddaanan hay-adihii garsoorka ee dowladdu aynan hagaagsaneyn cadaaladdu ma iman karto. cadaaladdu waxay ku iman kartaa in la helo hay-ado garsoora oo u taagan in ay fuliyaan cadaaladda. sidaas darteed waxaan ka shaqayn doonaa in hay-adaha garsoorka iyo cadaaladduba ay noqdaan hay-ado si gaara loo ihtimaamiyey oo ka shaqeeya qofka muwaadinka Soomaaliga ah cadaalad sida uu ku heli lahaa meel walba uu joogo. كان قبيل كديدالي بدني مدى دونالي